بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال ميل وباجوكتان سي walbo muuqaalkayga idii soo gaarayaba ku soo dhawaada qodobada warka Africa Cable TV xaruntiisa dhexe ee magaalada Jowhar warku waxa idin la socodsiinaya hadii abaweyne uu ka raali noqdo anigoo ah Maxamed Yaasiin Mahdi Maxamed Qalfa qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah dawladda Soomaaliya oo la wareegtay markab raashin ah oo kaga yimid dawladda Turkiga oo lagu talagalay dadka danyarta tartanka kooxaha warbaahinta City FM oo maraya heer gabagaba ah wasiirka amniga Puntland oo sheegay inay soo afjari doonaan dagaalada ay kula jiraan al-shabaab iyo Daesh al-shabaab oo sheegtay inay soo xirtay ku dhawaad 15 oday oo ku sugnaa degmada Xarardheer ee gobolka Mudug al-sunna oo sheegtay in ay ciidamo kala dhex dhigeen maleeshiyadii ku dagaalamayay deegaano u dhaxeeya Galgaduud iyo Hiiraan wasiir dawlaha amniga Puntland oo maanta loo dhaariyay xilka cusub oo uu magacaabay madaxweynaha Puntland tartanka Quraan akhriska warbaahinta City FM oo si habsami leh uga soconaya xarunta idaacadda City FM ee magaalada Jowhar qodobadaas wixii ku soo kordha ayaad ku daawan doontaan u diyaar garooba warka Africa Cable TV markale waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Maxamed Yaasiin Mahdi Maxamed Qalfa